ghazawaadkii ka mid ah buu nebigu seef soo qaaday seef markaa buu saxaabadii ku yidhi ayaa seeftaa iga qaadan markaasay saxaabadu gacanta taageen anaa qaadan dagaalkiina uu socda waa la soo fadhiya markaa buu nebigu yidhi ayaa qaadan oo xaqeygana siin markaasay gacantii la wada noqdeen abu dujaana saxaabi la odhan jiray baa anigaa qaadan oo xaqeyga marin xaggaa kalena nebigayna abtigiibaa gacanta soo taagay zubayr anaa qaadi oo gacanta seefta xaqeeda marin zubayr nebigu intuu eegay buu seefta u dhiibay abu dujaan oo nebigu seefta u dhiibay abu dujaana samaak binu kharasha radia allahu canhu dana saxaabigii zubayr binu cawaam wuxuu wallaahi caloosha uurkaan wax ku qabtay buu yidhi maalinkaa waxaan is idhi adoo nebi maxamed ina abtigiiya oo ay ku dhashay safiyata bintu cabdilmutalib maxuu nebigu seefta adiga kaaga leexiyey uu abu dujaano ugu dhiibay haddana waxaan is idhi waa nebi waa rasuul ilaahay weeyaan kollay nebi maxamed tallaabada uu qaaday xikmad baa ka dambaysee bal abu dujaana wuxuu sameeyey hafiirisid abu dujaana radia allahu canhu seeftii buu qaatay markaas seefta galkaa laga saaray xaqeegu waa maxay waa inaad gaalada mushrikiinta qoorta aad kaga goysid oona seeftaa galkeeda ay ku soo noqon baa lagu yidhi markaasuu la soo baxay maro yaroo casu halkaabuu ku xidhay oo ay ku qoran tahay nasrun min allahi wa fatxun qariib wabashir ilmu'miniin carabtuna dhaqan waxay lahayd maradaa casniga madaxa ku xidha waa dhimasho ma soo jeesanayay bay ka dhigan tahay dhimasho mooyaane markaasay saxaabadu madaxa qabsadeen abu dujaana maanta waxa uu la soo baxay calaamadii mowdka markuu dagaalka xaggiisii u sii dhaqaaqay dagaalkuna maaha rasaas waxa laysku mirayo ogow waa seef waa gacanta layskula tegaya waxaa la yidhi socodka dadka kibirka badan leh xaragooda ay u socdaan sidooda ayuu u dhaqaaqay baa la yidhi isagoose sii qalqalloocinaya markaasuu saxaabadu way eegeen yaa rasuul allah rasuulkay u tegeen yaa rasuul allah hee abu dujaana hee sidai mutakabiriintu u socdaay maanad arkayn markaa buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi waa runtiin sida abu dujaana uu u socdo socodka noocaasa ilaahay ma jecla buu nebigu ka yidhi laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay buu rasuulku yidhi wuxuu ku xaragoonayaa xaragada meesheedii buu dhigay innaga maanta dhallinyaradeennu xaragada halkay dhigeen socodka abu dujaana uu u dhaqaaqay buu nebigu yidhi ilaahay uu necab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay buu rasuulku yidhi waayo daacadda ilaahay buu sii xaragoonayaa inuu diinta difaaceega u dhinto oo ballankii nebiga uu la galay inuu buuxiyo ayuu u sii xaragoonayaa waxaan qisadaa u soo qaatay waxa weeyaan shay walba saxaabadu halkii loogu talagalay bay ku bixiyeen innaga maanta dhaqaalaheennii halkuu ku baxayaa intiisa u badan dhallinyarnimadeennii halkay ku baxaysaa quwadeennii halkay ku baxaysaa caqligeennii halkuu ku baxayaa xoogeennii halkuu ku baxayaa maanta u fiirsada walaalayaal salaaxiyaadka ilaahayna geliyey mujtamaca muslimka intooda u badan waa hal bacal lagu liso cidlu waqtigeenni ku dhammaaday maanta nicmadda ilaahay uu ku siiyey kayfiyadda aad u isticmaali lahayd shareecadda way kuu xadiday ugu taxdiid bay kuu samaysay cuntadii kuluu washrabuu cuntada ilaahay wuxuuna amray cuna buu ilahay cuna waa xalaal cun acab laakiin walaa tusrifuu ha israafina baa ilaahay israafku waa maxay cuntada inta calooshaadu u baahan tahay in ka badan haddaad ku ridid inaad faa'iide ka heshaa ha sugin xanuun inaad ka qaadaa mooyaane waa meesha dhakhtarradu dadka iminka ay kula taliyaan ay yidhaahdaan cuntadana iska yareeya socodkana badiya dhakhtar romana ayaa u yimiday haaruun urashiid markaasuu ku yidhi yaa ayuha almalik qur'aankiinnu waan u fiirsado cilma aladyaan unbuu ka warramaa samada jannada naarta shareecadda aakhirada qiyaamaha laakiin cilma alabdaan kama warrama buu yidhi cilma alabdaan waa cilmiga dhakhtarnimada cabdilmalik wuxuu ku yidhi haaruun rashiid baa ku yidhi aayad barhkeed ayaa dhakhtarnimada dhan ba ilaahay noogu sheegee adaana fahamsanayn buu ku yidhi markaasuu yidhi iifas ii sheeg markaa haaruun rashiid baa ku yidhi khaadimkiisii
kuluu washrabuu walaa tusrifuu u fasiro u macnaya buu yidhi waa dhakhtar caddaana aayaddaa keliya aayaddaa barhkeed baa loo macneeyey wallaahi wuxuu yidhi waa run qur-aanku haddaa cilmi uu ka tegay haba yaraatee ma jirta buu yidhi waxaan annaku aan ogaanay buu yidhi haddaan dhakhtarro aan nahay xanuunada u badan ee bini aadanka gaadha waxay ka soo gaadhaan waa caloosha cunta ay ku jirto cunto kale laga dulgeeyo طacaamun cala طacaam marka shareecadda islaamku shahawaadkaaga adduunka dusheeda aad ku gudanayso xuduud ba u yeesho xuduud hadalkii waa lagu xadiday man kaana yuuminu biاllahi waاlyowmi اlaakhiri falyasmut falyaqul khayran aw layasmut buu nebigu yidhi qofkii ilaahay inuu jiro rumaysan aakhire inay jirtana ku xisaabtamayow khayr ku hadal buu nebigu yidhi ama iska aamus hadalku waa nicmad u dhammaadaa maqalku waa nicmad u dhammaadaa araggu waa nicmad u dhammaadaa u fiirso 20 jirka 80 jirku ma isku maqalba may ma isku aragba may ma isku quwadba xagga hadalka may ma isku socodba may 80 jirku markaad soo taagto wuxuu koranayaa kumaad ahayd buu koranayaa adeer kumaad ahayd hadalka uu isdhimi aragga uu isdhimi maqalka uu isdhimi wuxuu koranayaa hadalka kor igu qaad limaada lana nicmadu way soo dhamaatay yaa macshar shabaab waxaan arkaa mujtamacan bifadli illaahi caza wajal dhalinyar buu u badan yahay masaajidda meelaha badanaan soo marayna mujtamaca masaajidda soo camiraya waa dhalinyaro waxaa naftaydana ku waaninaya ininkana nagu waaninaya nicamta ilaahayna siiyey halkii loogu talagalay han dhigno yaan cidlo ku dayicin insha allah dhahada insha allah dhahada si fiican اغتنم 5 قبل 5 صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك غناك قبل فقرك ابو النبي صلى الله عليه وسلم شن نعمدود انت هيستد شن انت يسكوغو يمن uga faa'iideysa buu nabi maxamed ku leeyahay dhalinyarnimadaada ka faa'iideysa inta dhalinyarada tahay waayo gabowga kugu soo socda intaad caafimaadka haysa ka faa'iideyso waayo xanuun baa daba socdo gadaashiisa iman doona caafimaad waxaad firaaqa ka faa'iideysa gacan bannaanida waxaa iman doonta xilli aad noqon doonta mashquulku waa maxay meherad baad yeelan kartaa reer baad yeelanaysaa ilmaa imanaya ilmihii baa bukoonaya iskool buu u baahan yahay dhakhtar buu u baahanaya maskiidkuu u baahanaya tacliim buu u baahanaya dhar buu u baahanaya daawuu u baahanaya laakiin markaa dhallinyarada bannaantay ogow marka intaad firaaqa haysato ka faa'iidaysa intaanad mashquulin intaad caafimaadka haysatidna he uga faa'iidaysa intuu xanuunku kugu dhicin intaad haniga tahay hanigu waa ayo amni baad haysataa amnigu waa nicmad caafimaad baad haysataa caafimaadku waa nicmad quutalyoom baad haysataa quutalyoomku waa nicmad lixaadkii baa kuu dhammaystiran lixaadku waa nicmad intaad haniga tahay deeqtoon tahay ee weli baahidu ayna kugu badanin ee baahidaadu ay xadidan tahay baa lagu leeyahay hinadaada ka faa'iidayso ilaahay la baayac mushtari tacaraf ila allahi fi الrakhaa yacrifuka fi shidda barwaaqada intaad hayso ilaahay garo maalintay dhibaato adigana kula soo daristo ayuu ilaahay adigana kuu soo gurman doonaaye barwaaqada amnigu waa barwaaqo caafimaadku waa barwaaqo hinadu waa barwaaqo sixadu waa barwaaqo dhallinyarnimadu waa barwaaqo islaamnimadu waa barwaaqo masaajidaad haysateed ku tukanaysid ee culammadu maanta mar walba ka qaylayaan waa barwaaqo tijaaradda xalaashaad haysato waa barwaaqo barwaaqada intaad haysato ilaahay garo oo xidhiidh fiican ilaahay la yeelo maalintay dhibaata adigana kula soo daristo ilaahay adigana kuu soo gurman doonaa sidii ninkii reer bani israa'iil ahaayee la odhan jiray jurayj caabid reer bani israa'iil buu ahaa caabid reer bani israa'iil buu ahaa cubaadda reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhowaadaan mujtamaca way ka dhexbaxayeen ruhbaan bay noqonayeen ruhbaaniya buuraha dusheeday degayeen soomicad bay dhisanayeen cariish halkaabuu ilaahay kula munaajoonayey deedna halkaabuu ilaahay cilaaqo fiican ula yeelanayey isagoo salaad ku jira
ayay hooyadii u timiday baa la yidhi markaabay ku tiri yaa jurayj markaasuu dareemay sawdkaas inuu yahay sawdkii hooyadii inuu yahay markaasuu yidhi yaa rabbi ma salaadaa fadli badan mise hooyada inaan ajiibo oqoontiisa ayaa yarayd waayo caabid buu haya caalim ma ahayn baa la yidhi caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya daadna markaa buu yidhi salaadaa ka fadli badana salaadaada iska wado way raagsatay way iska noqotay maalin dambey ku soo noqotay yaa jurayj markaasuu hadalkeygii gartay haddana salaaddii buu iska watay way ka noqotay maalin saddexaad buu u soo noqotay yaa jurayj haddana way ka noqotay waa caalim mahayna waa caabid waajib iyo sunnaha ma kala garanayo salaaduu ku jira waa sunno weeyaan waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan an ishkur lii waliwaalidayka ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq labadaada waalidna u mahadnaq ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay biru aabaa'akum tabiru abnaa'akum baa nebigu yidhi labada waalid u samafala kuwaad ininkuna aad dashaan baa inii samafali doonee buu rasuulku yidhi salaada sunnada iyo baaqa waalidka inuu ajiiba yahay liqilati cilmihi ayuu yidhi salaadaa ka khayr badan salaaddii buu iska watay way ka noqoto habaar bay dusha ka saarto waxay tidhi ilaahu inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeenoo ku fidnaya mooyaane habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalidu reer bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii jurayj ahaa ummadiiba uu ka dhex baxayo halkaasuu ilaahay ku caabudaayo weli ilaahay buu noqdayo tacalluq buu ilaahay la yeeshayo naagaha xunxun ee jidhka uga gada ahayd ayaad timidoo ku tiri anuu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan bannaankii bay ugu timidee buur dusheeday ugu timidee keligii si walba way isku hordhigtay baa la yidhi waxay leedahay bal ha ku damco markaabay ku leedahay jurayjo waa labadeennoo keliye kaale waxaan doona han samayno han ciyaarne walaakiin jurayj imtixaan hooye unbaa ku yar dhacay mooyaane qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa iyo ilaahay cabsidiisa taqwada waa cajiib taqwada allah ina siiyo